بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معشر الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله. kusoo dhowaada barnaamijkeennii qiimaha badnaa fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. waa barnaamij toddobaadla ah oo aan su-aalo ku weydiino sheekh moxamed cabdi umal xafidahu allahu tabaaraka wa tacaala. barnaamijkan waxaa idin soo qabanqaabisay munadamat alixsaan lilricaayati alijtimaaciya. barnaamijkan xalqadeennan caawa waa xalqadii 21aad, taariikhduna waa 22kii bisha dulqacda 1437 hijriyada oo waafaqsan 25kii bisha sideedaad 2016. barnaamijkan su-aalihiisa waxaad ku soo hagaajin kartaan sanaadiiqda ku dhegan masaajidka iyo emailka ay muasasadu leedahay ihsanmedia@gmail.com. barnaamijkan dib mar kale waxaad uga daalacan kartaan webbageka ay muasasadu leedahay ihsanmedia.com iyo .net iyo ihsan media youtube-ka iyo salaf media youtube-ka. su-aasheennan caawana waa su-aasha 332. saa'iladan waxay leedahay: waxaa isoo korsaday abtigay, waalidkaygana waxay dhinteen anigoo yar. markaan weynaaday abti ayaa igu dareenin, adeeradayna way joogeen, laakiin waxba lama uusan socodsiin. waxaan dhalay carruur, kadibna waannu kala tagnay ninkii. mid ka mida adeeraday baa igu yidhi, ilmahaaga xarig xalaal kuma dhalan, waayo abtigaa nooma sheegin guurkaaga, nalama socodsiin, wilaayadiina wuu marooqsaday, ee sheekhana maxaa xal ah? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصح سيدو adeerku sheegay nikaaxu horta sax ma ahayn, nikaax faasid wahaa. sababta waxa weeye sida axaadiista nebigu tilmaamay sal alla alay wasalam, fuqahadana badankood ay qabaan laa nikaaxa ila biwaliyin, guur wali la'aan ma asaxo. abtiguna ka mid ma aha awliyada xaqa u leh inay gabadha guuriyaan. waxaa guuriya dadka abtirka la wadaaga, kuwaasaa awliya la yidhahda, si u kala sokeeyaanba, laakiin abtigu ka mid maaha. inuu gabadha soo koriyeyna xaq uma siinayso inuu bixin karo, guurin karo. dhalasho ahaan iyo abtir ahaan ninka ugu dhowbaa weli u ah. adeeradeed haddaan looga sokaynin iyaga ahaa inay guuriyaan. sidaas daraaddeed guurkaasi ma saxsanay. amaa carruurtu sharci la'aan maaha, ilmo maaha sharci darro ku dhashay. xarig la'aan wax ku dhashayna ma aha oo sida ilmo garac oo kale ah ma aha. hadalkaasi abtigu kuma saxsana, waxaan u jeedaa adeerku kuma saxsana. waxaana u geeyey aqoon darro iyo laga yaabo inay xanaaqna la jiro, nin xaqiisii la boobay oo xanaaqsan wa. marka carruurtu waa carruur sharci ah. carruurtu waa carruur sharci ah. aabbahood bay ku abtirsanayaan, nasabkay qaadanayaan, hooyana waa hooyadood. maxaa yeele marar badan baa waxaan soo baraarujinnay ilmuhu inuu nasabka qaato oo ilmo sharciya noqdo iyo guurku inuu asaxo talaasum kama dhexeeyo. guurka oon sax ahayn bay dhici kartaana haddana ilmuhu inuu ilmo sharciya noqdo. tusaalayaal baan hadda ka hor bixinnay oo maalan ilmuhu guur aan saxsanayn, laakiin labada ruuxoo isguursanaya ay rumaysan yihiin inuu u saxsan yahay, saa ictiqaadsan yihiin, ilmaha ku dhashay waa ilmo sharciya. kadalika waxaa loo yaqaano galmada shubhada
nin xaaskiisii ay naag kale kaga dhex darmatay ama islaan kale uga ekaatay oo u galmooday oo sidaa ilmo ku dhalay. yacni waxa la yidhahda wadu shubha la dhaha, galmo shubha waay. ilmaha sidaa ku dhashay ilmo sharciga noqona. qaacidada uu dejiyey sheekhu islaam ibnu taymiya waxa weeye ee saxda ah, ninkan markuu islaanta u galmoonayo, ninka ilmuhu ka imaan doono markuu u galmoonayo islaanta, hadduu rumaysan yahay inuu xalaal ugu galmoonayo oo shareecadu u xalaalayso, ictiqaadkaasi ama ha saxsanaado ama ha khaldanaado, miisaanka shareecada marka la saaro. laakiin isagoo saaba ictiqaadsanba hadduu u galmoodo, ilmaha meeshaa ka dhashaayay waa ilmo sharciya ilaa xaddaas. laanna shareecadu waxay ku dadaalaysaa carruurta inaan nasab la'aan la dhigin. dadaalka ugu badan wax yar baa loo raadin in ilmaha loo helo muxuu ahay abtir loo sameeyo. sidaas daraaddeed carruurtu waa carruur sharci ah, aabbahood bay ku abtirsan, guurkuna ma saxsanayn. haddii aad hadda kala tagteenna dee guurkii hadalba kama jiro oo hadda ka sii hadli mayno. wallahu aclam.